qaybta labaad waxay ka bilaabanaysaa Cumar oo loo xil saaray howlgal sirdoon oo noqon doona mid taariikhda gala kabahana ka jira gumaystaha Israa'iil. Maskax ugu dambeyn ku guuleysan doonta in gudaha loo galo hay'adda sirdoonka Mossad, taas oo dunidu maanta ay aad uga baqdo. In la helo dhammaan sirdoonnada iyo wakiilada u shaqeeya hay'addan xogtooda iyo meelaha ay dunida ka kala joogaan. Tani waxay ahayd culays iyo jab aad u xooggan oo gaaray gumaystaha, waxayna dhanka kale ahayd fadeexad iyo muujinta inay waxba kama jiraan tahay awoodda iyo sir ilaalinta ay in muddo ah ku faanaysay hay'adda Mossad ayna tahay buunbuunin iyo waxba kama jiraan. Khalid Sabri waxa uu ahaa sargaal loo idmaday howlgal aad u culus inuu si xeel dheer u galo shabakadda uu dhisay Salim al-Husseini, isla markaana uu gudaha ka jabiyo. Tani ma aan dagaal toos ah, balse waa dagaal maskaxeed, dulqaad iyo qorshe saxana u baahan. Halkan ayayna ka bilaabanaysaa qorshaha ka dhan ah Salim al-Husseini. Aan wax yar ku xasuusiyo, waa kuma Salim al-Husseini? Ninkan waa ninkii dhalinyarada ahaa ee sirdoonka Mossad ka codsaday inuu u shaqeeyo si uu u qiyaamo dhibaato xooggan uu u geysto waddanka uu ka soo jeedo ee Masar. Waxaana ku soo sheegnay bartamaha qaybta koobaad ee qisada. Qorshuhu wuxuu ahaa in si xeel dheer loogu tuuro dabinka saxda ah, loona dhigo nin dhalinyaro ah oo noqda bartilmaameedku ay qabtaan indhaha Mossad, kadibna ay ninkaas shaqaalaysiiyaan. Waxaan ula jeedaa sirdoonka Masar waxa ay diyaariyeen wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Cumar si uu u noqdo sirqda loo dhigayo gumaystaha Israa'iil. Waxaa loo diyaariyey in hay'adda Mossad markii hadhowdii ay la soo xiriirto oo noqdo mid ayaga u shaqeeya, sida oo kalena dhanka kale u shaqeeya hay'adda sirdoonka dalka Masar, kaas oo noqonaya sirdoon laba kaara ah, xogtana u soo gudbin doona sirdoonka dowladda Masar. Salim al-Husseini asaguna Yurub ayuu ku sugnaa, isla markaasna wuxuu ku mashquulsanaa dhisidda shabakad basaasnimo. Wuxuu si joogto ah u xulan jiray dadka uu ka dhigayo wakiilo basaasayaal, kuwaas oo Yahuudda u shaqeeya. Habka uu shaqeynaya wuxuu aad ugu egyahay habka hay'adda sirdoonka Masar ay dadka u xushaan. Waa sida ay u kala saaraan halyeeyada iyo kuwa u qalma. Salim isaguna sida oo kale waa uu kala sooci jiray dadka, laakiin farqiga u dhexeeyay ayaa ahaa in dhinac uu ahaa khiyaano, dhinaca kalena uu ahaa wadaniyad. Salim wuxuu si gaar ah u beegsan jiray dadka tabarta yar, qof dhibaato dhaqaale haysato, qof dumar ah oo si fudud loo dabi karo, ama qof duruuf adag ku jira oo si sahlan loo marin habaabin karo. Si kastaba ha ahaatee, isagu ma uusan qaadan jirin qof aan caqli badnayn. Qofku waa inuu yeeshaa wax lagu qaato. Wuxuu ogyahay in shabakadda basaasnimo ay u baahan tahay dad leh astaamo gaar ah, awoodna u leh inay howlgal fuliyaan. Arrintani waxayna baraysaa qodob muhiim ah. Marka aad la macaamilayso cadow, waa inaad marka hore aqoonsataa awooddiisa, faahfaahinta sida uu u fikiro, kadibna aad la timaadaa qorshe ka sii xeel dheer. Taas ayayna ahayd falsafadda uu ku socday qorshe lagu burburinayay shabakadda Salim al-Husseini. Haddaba arrintani ma ahayn mid ku salaysan nasiib ama xulasho isku mid ah. Haddaba Salim al-Husseini marna qof walba iskama xulan jirin. Wuxuu si taxaddar leh u raadin jiray qof leh astaamo gaar ah, qof maskax ahaan diyaarsan, shakhsiyad ahaan adkaysi leh, isla markaana howlgal lagu aamini karo. Halkaas ayay indhuhu ku soo dhaceen Cumar Taaha. Sirdoonka Masar ayaa go'aamiyey in Cumar uu yahay qofka ku habboon ee lagu wajihi karo sirdoonka Mossad. Sababtuna waa mid cad. Cumar waxa uu lahaa shakhsiyad aad u soo jiidasho leh. Si fiican ayuu u hadli jiray, si sahlan ayuu dadka u kasban jiray, kaftan iyo la qabsasho ayuu lahaa. Maskaxdiisu si degdeg ah ayay wax u xifdin jirtay. Waxa uu lahaa feejignaan sare, awood uu xiriir degdeg ah ku sameeyo, isla markaana uu si dabiici ah ugu dhex milmi karo bulsho kasta. Intaas waxaa dheer, Cumar wuxuu si heer sare ah ugu fiicnaa kaamirooyinka kormeerka iyo nidaamyada ammaanka internetka. Xirfad aad u qiimo badan marka la eego aragtida Mossad ayay ahayd. Tusaale, haddii adigu aad tahay sirdoon Mossad ah oo ku fikiraya maskaxdooda, su'aashani waa mid fudud. Maxaa ka hor istaagi karo qof leh astaamahan oo kale inaad si fudud ku kasbato, kadibna aad u adeegsato howlgal sirdoon oo gudaha Masar ah, maadaama qofka xirfadaas leh aragtidiisuna ay sidaas u fiican tahay uu yahay qof Masari ah? Tani waa jawaab fudud oo haddii aad ahaan lahayd adigu sargaalkaasi, si fudud ayaad u shaqaalaysiin lahayd. Sidaas darteed, Cumar wuxuu noqday bartilmaameed si xeel dheer loo diyaariyey, qofka indhaha Mossad ay si dabiici ah u qaban doonaan, isla markaana u muuqda fursad dahabi ah oo sirdoon oo aan la dayici karin. Halkaas ayayna ka bilaabatay marxalad aad u adag oo tijaabooyin iyo diyaarin ah. Haddaba yaa diyaarinaya Cumar? Cumar waxaa diyaarinayay sirdoonka Masar si ay u howlgeliyaan oo loogu soo dabo ama siriq ahaan loogu dhigo sirdoonka Mossad, kadibna marka ay isku dayaan inay shaqaalaysiiyaan, isagu uu noqdo mid laf dhuun gasho ku noqon doona, sirahoodana bannaanka keeni doona.
Cumar Taha waxaa la geliyay imtixaano culus oo kala duwan, imtixaano lagu cabirayo daacadnimadiisa, wadaniyadiisa, adkeysigiisa nafsiyadeed, iyo sida uu u dhaqmi lahaa haddii la qabto ama la cadaadiyo. Waxaa si gaar ah loo eegi jiray sida uu uga jawaabo su'aalaha adag, cabsida iyo xaaladaha lama filaanka ahba. Tijaabooyinkaasi kuma aysan ogaan oo keliya su'aalo iyo waraysiyo, waxaa kaloo loo sameeyay xaalado gaar ah oo loo diyaariyey si dhab ah si loo arko falcelintiisa. Waxaa xataa la sheegaa, inkastoo aan si rasmi ah loo faahfaahin, in mar lagu sameeyay jilitaan u eg mid la qabtay oo la wareysanayo iyadoo aan loo sheegin inay yihiin sirdoonka Masar, si loo hubiyo sida uu u dhaqmo marka uu dareemo khatar dhab ah inuu ku jiro. Marka uu ka gudbay dhammaan tijaabooyinkaas, laguna qancay inuu yahay qof u qalma hawshaas, ayaa loo gudbay marxaladda tababarka. Cumar waxaa la siiyey tababar heer sare ah, mid ka mid ah tababarada ugu fiican ee sirdoon lagu diyaariyo. Waxaa lagu tababaray ururinta xogta, akhrinta xaaladaha, xusuusinta faahfaahinta, iyo dhammaan noocyada tababarka sirdoon ee qof lagu diyaariyo. Tababarkaasi wuxuu ahaa mid dhammaystiran, mid jir ahaan, maskax ahaan iyo xeelad ahaanba u diyaarinaya Cumar inuu galo howlgal u baahan dulqaad, sir ilaalin, iyo feejignaan joogto ah, isaga oo wakiil buuxa u ah hay'adda sirdoonka Masar. Ujeedka ugu weyn ee howlgalkan wuxuu ahaa in la hubiyo in Cumar Taha uu noqdo qof si buuxda ugu qalmo hawsha, kuna guuleysta inuu gaaro dhammaan magacyada shabakadda basaasiinta iyo wakiilada ka howlgala Yurub. Taas ayay ahayd yoolka aasaasiga ah ee hawshan loogu idmaday. Sidaas darteed, qorshuhu wuxuu noqday in Cumar loo qaado Giriigga, lana geeyo halkaas isaga oo si toos ah loogu wajahayo Salim al-Xuseyni, madaxii hay'adda basaasiinta Israa'iil halkaas u joogay, si hawshu ay u noqoto mid dabiici ah. Waxaa loo baahan yahay markaa in la diyaariyo qaabkii uu Cumar ugu noolaan lahaa Yurub, maadaama uu yahay basaas. Doorkiisu basaasnimada ma waxay noqon doontaa arday, ma waxay noqon doontaa macallin, mase waxay noqonaysaa mid sidaas ka sii duwan. Cumar waxaa loo sameeyay sheeko nololeed oo u muuqata sidii wiil Masri ah oo dhibaatooyin badan soo maray, xaaskiisana ay soo kala tageen. Nin dhalinyaro ah oo nolosha u arkay inuu ka dhaqaale roon yahay ninka xaaskiisii hore qabo. Shaqadiisa Masarna aysan ahayn mid dabooli karta baahida noloshiisa. Waxaa loola jeedaa Cumar waxaa loo dhisay sheeko maqaab ugu dhex noolaan karo bulshada, isaga oo jilaya wiil dhalinyaro ah oo dalkiisa duruufo nololeed uga soo hayaamay. Sheekadiisu waxa ay ahayd mid la rumaysan kara qaabka loo dhisay, nin mas'uuliyad badan ay dusha ka saaran yihiin, mas'uulna ka ah hooyadiis iyo walaalihiis, kuna jira xaalad nololeed oo aad u adag. Intaas waxaa dheer, waxaa loo xoojiyey dhinaca farsamada, dhibaatooyinka la xiriira shabakadaha, iyo furitaanka kanaalo qarsoon. Wax walba si xeel dheer ayaa loo diyaariyey si sawirka Cumar uu u noqdo mid dhammaystiran oo u muuqdo qof dhab ah, isla markaana si sahlan u kasban kara kalsoonida cid walba uu la kulmo. Saaxiibayaal, waad ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina. Halkaas waxaa noogu eg qaybtii labaad ee sheekadii basaasnimo ee wiilkii dhalinyarada ahaa ee Masriga ahaa ee gudaha u galay sistamyada hay'adda sirdoon ee Mossad, kaas oo kala furfuray bannaankana keenay xogo badan oo sir ah. Sheekadani waxay ahayd sheeko dunida oo dhan hadalhayn badan ka abuurtay, kana mid ah sheekooyinka ugu faca weyn ee bugga taariikhda sirdoonka lagu qoro. Saaxiibayaal, qaybta saddexaad ayaan dhawaan idiin soo baahin doonaa, balse waxaan jeclaan lahaa inaad mar walba ila wadaagtaan aragtidiina gaarka ah ee ku aadan sheekooyinka noocan ah. Waa ku mahadsantihiin la jaanqaadkiina, falcelintiina iyo qaabka wanaagsan aad ila socoteen. qaybta horena waa arkayay. Waxaan rabaa inaan idiin mahadceliyo saaxiibayaal dhammaantiin, qof walba oo isoo follow gareeyay, mid walba oo like ii saaray, mid walba oo ii share gareeyay, mid walba oo commentigaba aragtidiisa igula wadaagay. Waa mahadsantihiin ayaan idin leeyahay. qaybta saddexaad ayaan dhawaan idinla wadaagi doonaa. ku mahadsanidin la jaanqaadkiina haddii ay tahay soo booqashadaadii koowaad ee boggaaga iyo boggiina YouTube iyo TikTok ee Xalana Media, iyo sidoo kale haddaad igala socoto Facebook-geenana nagu soo bir ayaan ku leeyahay. ku mahadsanid la jaanqaadkaaga.